وعشركين نو سعودي وها learn how to use a window PowerShell ISE command عشركان وحان كسو هذا اللي نعمها وكجرنا عشركي كوري وها regular expression code وحلي رادو وكديرها ما يهلكاس هيان تقيا مركا انتقو regular expression code وحان كسو هذا قيبت كوبان ليرو وحلي رادو ليرو ماجد وحلي رادو أما ماجدز hadda waxaan ka hadlaynaa wax la yiraahdo parent matching aan ka hadlaynaa. Let's take a look at a couple of examples aan ku tusinaya window PowerShell ISE waxaan la soo baxayaa mar walba in aan tuso window PowerShell ISE soo arkaysan halka ayaa weyninaya marka aan weyneeyo laba mar hoos u dhigayaa waxaan sameynaynaa parent IP address aan sameynaynaa anoo aan laba tusaale ama hal tusaale idinku tusinayno halkaas ayaan waxaan taabanayaa calaamadii IP ayaan leeyahay kabacdi waxaan garaacayaa koodka aan u baahanahay ayaan garaacayaa markaan garaaco 192.189-184 aan leeyahay dash 50 ayaan dhahayaa dash 50 markaan dhaho com ayaan leeyahay halka ayaan garaacayaa kabacdi haddana waxaan sii garaacayaa koodkaan aan garaacayaa rx ayaan leeyahay markaan dhaho dash aan leeyahay kabacdi halkaas ayaan waxaan rabaa inaan halka arbitirayaa markaan dhaho calaamadda aan ka tegay بعدي علامة عن شو قاعد صدق إنتر أيام لا هاي إنتر مكان ده وحن صابنا يا إكس ماتش جريان أيام سمينا يا IP address أيام لا هاي وسبيس سلاش ماتش لا هاي ماتش مكان ده أنا لا هاي RX أنا هاي واردا الوايس ماتش جريان هديس إس ماتش جرينين علامة داس فورس أم ترو هديس صو بعده نمبر كهو إس ماتش جريان ويان tusaale kale waxaan sameynayaa halkan ayaan wax ku garaacayaa IP address ayaan leeyahay IP address markaan dhaho waan garaacayaa haddana kood kale ayaan garaacayaa kood kale marka aan garaaco waxaan leeyahay 192 ayaan dhahayaa kabacdi 189/34/60 ayaan leeyahay 67 kabacdi calaamadan ayaan dhiganayaa intan ayaan dhahayaa aan garaacayaa rx kaan garaacayaa marka aan garaaco waxaan rx ka marka aan garaaco waxaan leeyahay ama waxaan dhahayaa halkaas ayaan leeyahay ip ayaan leeyahay ip markaan dhaho ip address ka markaan dhaho loo soo gaabiyo space aan siin baajid aan leeyahay baajid markaan dhaho kabacdi waxaan leeyahay rx aan dhahayaa marka haddaba pointiga waxa weeyaan numberka hadduu uu saxsan yahay ama qaldan yahay halka waxaa kaaga soo baxayso oo arkaysan true ama false aa kaaga soo baxayso hadduu uusan qaldaneyn waxaa kaaga soo baxay red baa kaaga soo baxayso oo waxa weeyaan koodkan er baa ku jira weeyaan anoon ku dheeraan haddii aad cashirkan ku cusub tahay ama aad galaaskan ku cusub tahay like-ta noo taabo comment ka bixi subscribe-kana noo saar si aa ula socotay cashirada aan ka hadlayno haddii aa interest gareynaysid in aad noqotid qof inaad baratid IT-ga sida loo sameeyo ama sida loo qoro script-ka window PowerShell ISE command waa inoo cashirkeena